وبركاته maanta waxaa idin wadaa qiso eedo cajiib ilaahay eedooyinka qaarkood xaqa tusi wax kale aan sheegay maqaan qisadan waxay ka bilaabatay saan nininaag oo isqabay oo reer ahaay oo gabar isku dhalay ayaa maalin walbo qeyladooda mushkiladooda dhibaatadooda way dhamaan weysay naagta waa naag ana sabarta ninkane waa ka daran yahay iyadoo ka daran yahay adiga mar woo dilaa mar waa isku qayliyaan mar dagaal dhex maro mar soo ka soo ahayd hal gabar u heysay marka dambe uu furi markuu furi gabadhii way iska dhaqaaqday reerkoodii aad gabadheedii wadatay ninkii ma uusan joogin xoogaa markay ka soo wareegatay adiga bilooyin waa qabsay gabar kaleetay oo reerkooda ka doontay gabadhii waxay tiri reer ma leedahay markaas wuxuu yiri reer waa lahaay laakiin waa kala tagnay gabar ay haysaa hadda laakiin waqti xada la joogo reer ma leh gabadhii way ogolaatay guurkoodii way guursatay markay muddo isla joogeen waxay u dhashay gabar ay u dhashay gabadhii markay u dhashay gabadhiyo yar oo ilmahan adiga 4 jirka 5 jirka camal ah ayaa islaantii la furay weynta ahayd ninkii waa guursaday markay maqasho way gurigii ka dhamaan weysay gabadhii ay keentaa waxay tiraahdaa gabadhii aabe soo tusnaa gabadhii ay loo keenay adigo daaqliina gashay yani reerka inaysan ka dhex bixin dhex walaaqdo dhex socoto dhex taaganta marka dambana waxay tiri anigu saan kuma noolaan karo gabadhan gadaal ka timid waxay tiri gabadhan waa furay ay tiri inay gurigii soo daaqisho maahan inay hadii cunugeed cunug tarafto inay ku keento ka doono soo wado ما هدارت بنانك كله قابل هدارت جوري كانسو لكن ناكتان ماداما أنا قبين أو كراتكتين مرة جوري هجوكتو ما أهن إني أنا جماعة تغير كي جوري الدون كي رح ولاقته حي ماني نيمكي وحيري وإيمان سا وين إيمان كرتا أديك محاكا قال يوحى إيجا قالوا يعني غير كان أنا يبغى قبتا قبل أن نقوم قبوا أنا اللي قبا قبل أن غير كوزه هجوكتو إيه مجوجة هذا دون تو إيمان سا ودي وين حناقضي أنا جيدة قاتي حيتر قبل قاتي حيتر دبل شاكل صار كسعت أنا واسكتي مركز اسكتكتي أو جور جيدة أدي أو حوسمي ناكتي إلا ناك ميوين تسدي ربتي وعي ويسول عوتو حيتر هاي أنكو قلعتو مركز وسكول عبتين مركز سكول عبتين أي حيتر محايا طالع سو ناكتو حيري جور جا إيماني هذا جور جا إيماني ما تحاول كسينا قبل حيتري أنا فرين يقول هندزيني تري والبو وقصة سومان ها هل جرو هنقوض هاينني إذا جرو ويال أنا جرو جيجا أنجوج ما دام كان أنا أي سمسي أيضا كذا هو بابا جرو كان أسمي أيضا أنا مركز قلتك أنا مركز ما عيب ما لهم لكن أنا إذا ما نقارن لو أخذ فاضي صدق جرو جي مثل جوجين وحيري أما جرو كسونا قناه كاسي كتير ماي لا ما يعبي تري هبين كحالة تجوال إن جورجس ناكتي جوكت إن الله نولاد جوري إيه سميسو جوري إيجي جوري يوم كنا نولاد أيضا جوري جوكت سكين قبل دارتي لكن ما نقنص ما نعيش ما ندعي دونت إن جوري يود جوكنا أنا هذا محيالة أديكو إقبال إيد قبل أيام بقديان كتاجنايت ما عذ الله إيزو اللي لقوا ما بكون نولانا يترتاس ما ممكن نولانا ما كفضل نيتري جوري هنا يدج وحجركم دجنا عدد جوري إيمانس أهلا وسهلا عدد جوري دجن أديكو تعالى waxay tiri guri muhiim macna wuxuu yiri dalaaqadaada ma rabtaa fag soo sii fag markuu soo sii wuxuu yiri cunuga waxay tiri hay gabadhaada biil soo siiso wuxuu yiri wax aan biil siinayo ma jirto gabadha aan ma dhalin maxaa raadi gabadha waxay aan ma dhalin gabadha waxay tiri ani gabadha aan ma dhalin marka yeeray sheeko soconaysa maahan wax kale miyaysa ay aan ma dhalin ma dhalin miyay tiri haa way jafay tiri maxkamadda tagtay way ka dacwootay isbitaal loo diray isbitaalkii DN gabadhii ka soo qaaday asaga DN xoog lagu soo qaaday DN kii la isku ogaaday maxkamaddu waxay ogaaday ninkan inuu dhalay hay gabadhan adaa dhalaalid waxay xaq u leedahay inaad biilkeeda dhiibtid
wuxuu yiri gabadhayda ku korsanayo gurigan ku korsanayo anaa wada haysana gabdhayga gacanta iga saarto maxkamadii waxay tiri hay gabadha ma biilan kartaa waxay tiri ma shaqeeyo reerkeena kuma hayn karo waxaa la yiraahdaa guriga aadan gabadhaada ku haysan karin aadan shaqeynin hadee ninkan xaq u leeyahay aabaan inuu cunugtiisa qaato ku wareejiyay gabadhii iyadoo ka calool xun ay diidaneed yani halaas dacwo hadii gelineen ma dhalideen inay ku haysta u runaysan laakiin iyadoo waxay isdheeyay gabadhii maadaama hadana aaba la'aan laga dhigayo oo wacal ku sheegay aabihii waxay tiri oo wacalansan ahayn wacal waa jiri wacalnaysan ahayn dadku u caday waa cadaysa dadka laakiin maxay kaaga taalay gabadhii maxkamadii waxay tiri ama shaqaysataa qof shaqaysataa gabadhaada biili kartaa maya okay dad gabadhaada biili kan abeeda xaq u leeyahay inuu qaato la asaga shaqaysta asaga biilanay gabadhii waa qaatay ama adigu gabadha ku biilanay maya wala wareejin maxkamadii ku wareejis okay hadii maxkamaddu wareejin waxay maxkamaddu u ogolaatay laakiin isbuuci hal mar inay gabadheeda soo aragto waaye isbuuci halkii mar xataa u diiday halka mar xataa ma arkaysi halkii mar banaankii gabadhii markay ku dheedheysay raasata gabadhii markay banaanka ku dheedheysay banaankii shukulaato waxaas ku siisaa marka gabadha korkeeda dhan wada dhaawac sidii dil loogu hay gabadhii haddana waxaa la yidhi haye intma imaanaysa haddaa mar dambe timaado albaabkayga iyo meelahayga agagaarkeeda gabadha meel ku dheelis timaado ogow qoortan kaa jaraya masaas ahay tiraha waaye way iska dhaaftay waxay bilowday intan iskoolka gabadha ay bilowday iskoolka inay ugu tagto gabadhii waa 7 jir iskoolka inay ugu tagto iskoolka waxay isla dhigtaan gabadhii oo isku aabaha ahaayeen naagta bahdi weyneed dhashay gabadhii weyneed ayaa soo rafyaanaysa way soo sheegaysaa waxay leedahay hiblaaye hooyadeed ayaa ugu tilmaantay iskoolka gabadhii dil la usii siyaada eedadaana u joogto naftay kasii qaaday jugsi ugu wato gabadhii waa u sheegtay hooyadeed waxay tiri hooyo markay igu timid ay i sheegtay tiri walaashay waa la idilaa waxay go-aan ku gaartay inay isku marka gabadhii marka dambe go-aanka waxay ku gaartay inay tiraahdo ee u tagto maxaa la madiirkii oo iskoolka joogay ay tiraahdo gabadhayda shukulaatada iyo waxaan u keeno iga gaarsii iyo sii ma u imaan karo way u diideen haddaan u imaadana gabadhii waa lasii silcinaa wuxuu yiri waayahay anaa u keenayo anaa kaa qabanayo anaana siinayo saasoo ahayd gabadhii waxaa bilaabatay inay macallimiinta dacwoodaan ay yiraahdaan gabadhan way aradan tahay way dhibaataysan tahay way bahdilan tahay dharkeedii dhar rafaasan waa dhar jeexjeexan waa dhar wasaq badan waa yani saan gabadhan dhalatay in la dhalatay looma maleeyo marka gabadhan ha loo maciisiyo adoo yaala wacay waa loo sheegay waxaa la gabadhan way bahdilan tahay saan waa silcaan gabadha ka dhaaf dhar fiican u soo geliya wax warkeed maqla maxaa idinka galo yiri gabadha waa ninkiina hay daaynin mahaynin dhaha adiga gabadhiisa u rafaasaneed marka dambe haddana gabadhii waxay soo sheegtay in hooyadeed ay mar walba u timaado mudiirka ay wax ugu keento way soo baxday gabadhii waxay usoo sheegtay hooyadeed waxay tiri mar walba tiri hooyadeed ayaa u timaado gabadhii marka gabadhii yareed haddana sidii inta la qabtaa babta laga suro iskoolka xataa waa laga reebay gabadhii intay ku arkay marka intay ka raadisay gabadhii male iskoolkay kasoo fiirisay male banaankay ka fiirisay male marka habeen lamid ah habeenada kamid ah waxay sameysay hooyadii inay seexatay rabto waa hooyo waa seexan weyse jiifka carka soo bixin ma jiifanayso waa soo kacdaa waa jiifataa way isku daydaa inay jiifato male habeenkii walwali waa uu bari waaga markuu bariyay maalin iskool ma ahayn gurigii albaabkiisa soo istaagtay waxa walwal waxa dareema ay leedahay yani waxaan dareemaa gabadheedii inay dhibaato ku dhacayso aan dareemayaa waxna ma ka qaban karo albaabkay soo istaagto waxay maqasho cunugteeda oohinteeda oo xoog leh albaabka uu xireen ma soo geli karto say oohintii cunugtu maqlaysa ee meelaha u taagneed ee u stressaneed ee kaligeed u ooyeyso uurku ugu ooynayso wax walba waxay samaysan aysa garaweysa marka dambe juuq ma leh gabadhi juuqda markay weysay waxay tiri saan tala ma ahan albaabka jukay albaabkii xoog ku jukaysay tiri albaabka markay xoog ku jukaysay tiri ninkii soo baxay marka dambe haddaa timaado naftan kaa qaada iga takumalina maxaa ku keenay albaabkii mar dambe imaan kartay way iska soo baxday markay iska soo baxday gabadhii way dhimatay marka say jug eedada u wad ee u dilaysay gabadhii kalxanta way ka jabtay dhabarka way ka jabtay fiiraha way ka jabtay cunugtii dhibaatadii xooga badnaa cunug yare ahayd u adkaysa weysay way dhimatay subxaan allah gabadhii markay dhimatay adoo u sheegtay waxay tiri gabadhii way dhimatay waa dilay dilka u geystana gabadhii way dhimatay wuxuu yiri maxaan sameynaa haddii aan sheego yiri adaa baxar galiis haddaa aan dhaafano waxaan sameeyay ma aqaan kolay ma dugnaa ayaga warka isku wadaan hooyadii oo hooyo dhibaato ku taagan way baxday waxay tagtay booliiska waxay tiri cunugteeda dhibaatan ay dareemaysaa ooginteeda iyo qayladeeda banaanka maqlaya wayna i diiday inaan galo gabadheydii marka dambena juuq waan ka waayay meelay ku xireen ma dilayeen ma afkay ka xireen ma sheegi karo adiga ilaahay uga soo qaaday booliiska soo baxay ayagoo isku mashquulsano isku maqmaqan
gabadhi ilaa intay qoftan sii maqneed ninkan waa qaaday godo u faaga dalaq ku siiyey gabadhi malaha waxay tiri ma dhici kartay tiri dadkan gabadheedii iyaga oo haysta gabadheeda ayaga gabadhi la weydiiyey sida warka lagu celcelinaa ilaahay ayaa waxaa ka keenay cunugta yareed oo dhahday cunugta hooyadeeya gudaha gashatay way dishay marka dambe way dhimatay aabe iyo hooyadeena waxay ku heshiiyeen inay duugaan intee lagu duugo qabuurada oo saas noocaas saas ah lagu duugo waa cunugta yareed oo la dhalatay ilaahay baa ka keenay marka waa la kala orday booliiska halkaas ay aadeen gabadhiyo sideedii ah laakiin dhimatay oo dhibka ku yaala yaabis ala soo qaaday isbitaalka la geeyay la baaray hadii la baaray jirkeed waxa laga helay inay jajaban yihiin inay dhibaato badan ku taal inta cadi badan ku yaalaan markii la wareysteen wuxuu yiri adoogii islaantana ku sameeyay ana kuma sameeyay islaantana waxay tiri markaan ku sameeyay mirkeyga ma jooglinbo yani naagtan ka dhex arkay cunugtiyo naagta ka dhex arkay tiri subhanallah odaygan waxa la adi odameen miya waxa cunugta markii saan u dilay naagta waxa ugu qomoweys gabadhii oo cunugta dhashay hooyadii cunugta dhashay waxay tiri maadan alla ka cabsanay tiri ma ilmaha ku sameeyay tiri markii cunugtii saan naagtan u dilaysay tiri maxad ugu qomoweys يعني هو ظالمة أبا ظالمة wax kala dhigi karnaa waa aaba daalime marka labadoodiiba waxay noqdeen dadka jariimada shuraka ku noqday yani dilkan ay shirkad ku noqdeen oo ku shurakaaween sababtoo qofta markay dishay qaadi qariyo isku mid subhanallah marka ilmaha yar ka ah waalidkood laga soo qaaday dhibaato badan ay leedahay ana waxaan dhihi lahay ilmaha yaa waalidkood laga soo qaaday abayaalo idinkana khayr Allah in siiye ilmaha marka hooyooyinkood ku furtaan biil ku sii say u korsato hooyo adigana ilmahaaga u dhibto wax walba kugu maraan ilmahaaga aad dhashay unigaaga waa dhinta markuu soo u dhinta ma taqaan unigaaga waa dhibaya dhibkiisa qof u sheegana ma yaqaan adiga hooyo ah hada tiraad wixii dhalaa korsanayo dhibkeeda leedahay marka isku daya hooyo taa jirkaaga la soo gooy dhibaatada badan u soo martay caloosha 9 bilood ku soo qaaday ilmaha maxaa loo yiri markii la dhahay waalidka xaq kuwaad hooyo iskale ثم أبوك 4 سوقلي ومركة أفراد لكن مركة كواد وصم أمك مركة لبعض وصم أمك مركة سدحات وصم أمك فهمت مركة أفراد وصم أبوك مركة إلهي أنت لقى عفص أولادها لو نحريستو ساكنت أولادها لو نحريستو سناق السلامد حيث هذا شير سبسكرايب لايك إن شاء الله ساسا إنك تجي تيم كيجا عصبايو تيم كيجا هرايو ما شاء الله تيم كهراي خير الله ينسيه إنت نجاري إنك إنكو جاري تيم كعصبان نويما إن شاء الله الله له حنا له كسود بعدك عم فرن وبلاشين وحواي إن شاء الله إنت إنك بدنا إلهي كبرينا إن نجارنا وكاساه إن شاء الله خير بدنا إذن جينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.